والله أن كبرته بالله أن كبرته طلع أن كبرته وكمية سنة بحني هذا نبضة deegaanka Aboorey waxaa yaalla meydkii ugu faraha badnaa ee kooxda argagixisada Al-Shabaab oo saaka halkaasi weerar gaadmaha ku soo qaadayay hase ahaatee geesiyaasha ciidanka deegaanka ayaa cashar lama ilaawaan ah halkaasi ku dhigay xogo fara badan ayaan daawada inkaga hayaa oo halkan kula wadaagayaa marka hore waxaan ka codsanayaa inaad muuqaalka inoo share garaysaan haddii ay tahay markii kuugu horeysay ee soo booqatay YouTube-ka Haldoorna aad subscribe tiraadid gambaleelkana furatid si mar walba aad ugula socotid xogihii ugu dambeeyay ka dhaca gobolada dalka Soomaaliya. Deegaanka Aboorey waxaa ka dhacay dagaal qaraar oo u dhaxeeyay ciidanka dadka deegaanka iyo kooxda arxanka daran ee maleeshiyada argagixisada Al-Shabaab oo soo qorsheysay inay weerar ku qaado ciidanka deegaanka ee ku sugan deegaanka Aboorey ee gobolka Hiiraan waxaana halkaasi ka dhacay dagaal qaraar oo saacado badan qaatay hase ahaatee ciidanka deegaanka ayaa waxa ay halkaasi ku dileen tiradii ugu badneed ee kooxda arxanka daran ee argagixisada Al-Shabaab laga dilo taniya markii oo bilowday dagaalka lagu xoreynayo qaybo ka mid ah gobolada dhexe ee bartamaha dalka Soomaaliya waxaana dagaalkaasi soo qaaday kooxda arxanka daran ee maleeshiyada argagixisada Al-Shabaab waxayna heleen ciidanka deegaanka xogta ah weerar inay soo yihiin kooxda arxanka daran kana soo tallaabeen jinka webiga waxa ayna u diyaar garoobeen sidii ay dagaal xoogan uga hortagi lahaayeen kooxdani arxanka daran ee caadeysatay daadinta dhiigga shacabka Soomaaliyeed waxaana halkaasi ka dhacay dagaal 4 saacadood qaatay waxa ayna sheegeen saraakiisha ciidanka macawisleyda ee ku sugan deegaanka Aboorey ee hoostaga degmada Buulaburde ee gobolka Hiiraan in halkaasi lagu dilay 250 dagaalame oo ka tirsan kooxda arxanka daran ee maleeshiyada argagixisada Al-Shabaab sidoo kale tana ay gacanta ku dhigeen dhaawacyo iyo sidoo kale dagaalamayaal si toos ah ay u qabteen ciidanka deegaanka waxa ayna wali si eryanayaan firxadka kooxda arxanka daran ee argagixisada Al-Shabaab waxa ayna sheegeen saraakiishu in markii ay soo gabagabeeyaan eriyada firxadka kooxda arxanka daran ee argagixisada Al-Shabaab ay soo bandhigi doonaan meydadka iyo dhaawacyada ay ka hayaan kooxda arxanka daran ee argagixisada Al-Shabaab ee weerarka ku soo qaaday deegaanka Aboorey sargaalkan ka tirsan ciidanka macawisleyda sidoo kale waxa uu sheegay in Aboorey ay tahay deegaan mar walba ay weerar ku soo qaadaan kooxda arxanka daran ee Al-Shabaab iyagoo ka soo tallaabaya dhanka webiga Jiinka waxa aan mar walba aan helnaa ayuu yiri xogta kooxdaasi waxaana ciidanka deegaanku ay yihiin kuwa mar walba ka hortaga dhagar kasta ay soo maleegaan kooxda argagixisada Al-Shabaab waxaan wacad ku maraynaa ayuu yiri in inta dhul Soomaaliyeed ay ku sugan yihiin kooxdani argagixisada Al-Shabaab aysan dhigi doonin qoriga ciidanka deegaanka ee haatan ka qayb qaadanaya dagaalka xoreynta ee ka socda gobolada dhexe ee bartamaha dalka Soomaaliya Aboorey ayaa lagu xasuustaa deegaan cashar lama ilaawaan ah loogu dhigay kooxda arxanka daran ee argagixisada Al-Shabaab iyadoona gudoomiyihii hore ee gobolka Hiiraan Cali Jayta Cismaan oo wacad ku maray in qaraxii beledweyne oo uga soo aari doono shacabka reer Hiiraan dhibkii ay u geysteen kooxda caadeysatay daadinta dhiigga shacabka Soomaaliyeed Aboorey ayaa hadda waxa ay tahay mid jawigeedu uu degan yahay iyadoona ciidanka macawisleydu ay gaaf wareegayaan daafaha magaalada waxaana halkaasi laga soo daadgureynayaa dhaawacyo ay ka carareen kooxdii arxanka darneed argagixisada Al-Shabaab ee soo weerartay Aboorey deegaankani Aboorey ayaa inta badanba waxa uu yahay deegaanadii laga faramaroojiyay kooxda arxanka daran ee argagixisada Al-Shabaab halkaasina loogu dhigay casharo lama ilaawaan ah iyadoona ciidanka deegaanka ee kaashanaya ciidanka dowladda federaalka Soomaaliya ay kala wareegeen horaantii muddadii 2022 waana markii uu bilowday halgankii lagu ciribtirayay kooxda arxanka daran ee argagixisada Al-Shabaab ee weerarka iyo sidoo kale dhibaatada ka waday gobolka Hiiraan waana midaasi oo gogoldhig u ahaa gudoomiyihii hore gobolka Hiiraan Cali Jayta Cismaan oo haatan wacad ku maray in marnaba uusan ka hari doonin kooxda arxanka daran ee argagixisada Al-Shabaab inta ay joogaan gayay Soomaaliyeed dagaalka dadka deegaanka markii uu bilowday Al-Shabaab waxaa soo gaaray dhibaatooyin fara badan maadaama shacabku ay yihiin kuwa udub dhexaad u ah dagaalka ka dhanka ah kooxda argagixisada Al-Shabaab sidoo kale tan ay yihiin geesiyaashii u haliilay in argagixisada ay iska dhiciyaan dhibaatada iyo sidoo kale baadii joogtada ahayd ay ka qaadi jireen ay ku bedelaan gumaca rasaasta oo ay dhadhansiyaan kooxda argagixisada Al-Shabaab ayna ka dileen
amiiro iyo sidoo kaleeta dagaalamayaashii ugu faraha badnaa ee maanta meydkoodu waran yahay deegaanka Aboorey ee gobolka Hiiraan ee bartamaha dalka Soomaaliya. Markii uu bilowday howlgalka dadka deegaanka ay uga faramaroojiyeen kooxdan arxanka daran ee argagixisada Al-Shabaab deegaano iyo degmooyin istiraatiiji ah, waxaa si isdaba joog ah ay u gaarayeen ciidanka deegaanka iyo ciidanka dowladda federaalka Soomaaliya guulo waaweyn oo sheegeen beesha caalamku in ciidanka deegaanka iyo kuwa dowladda federaalka Soomaaliya ay horumar ka sameeyeen jiidaha dagaalka ee lagula jiro ciribtirka kooxda argagixisada Al-Shabaab ayaa sidoo kaleeta waxaa soo wajahday dhibaato xooggan oo ku aadan in dhaawacyadii iyo sidoo kaleeta isku socodkiiba oo ka gaabtay maadaama diyaaradaha dagaalka ee ka qayb qaadanaya duqeynta joogtada ah inay keentay in Al-Shabaab qaybo badan oo ka mid ah gobolada dhexe bartamaha dalka Soomaaliya ay ku go'doomaan kooxdani arxanka daran. Al-Shabaab ayaa lagu xasuustaa in mar walba ay dhibaatay jireen shacabka Soomaaliyeed iyagoona ka dilayay haldoorka iyo sidoo kaleeta isha bulshadu ay markaasi daawanayso, waana midda keentay in shacabka Soomaaliyeed ay u istaagaan in kooxdani arxanka daran ee argagixisada Al-Shabaab ay iska dulqaadaan mar walbana goobtii ay ku arkaan ay dhamacda rasaasta dhadhansiyaan kana dilaan saraakiil iyo sidoo kaleeta dagaalamayaal ka tirsan kooxda arxanka daran ee argagixisada Al-Shabaab. Ciidanka deegaanka ayaa inta badanba dagaalada ay ku hayaan kooxda arxanka daran ee Al-Shabaab waxa ay ku noqdeen urkutaallo, waxa ayna Al-Shabaab aad u necab yihiin inay wajahaan dagaalka shacab ee ka socda qaybo ka mid ah gobolada dhexe bartamaha dalka Soomaaliya, waana midda keentay in Al-Shabaab hooy iyo harsimo loo diido sidoo kaleetana ay ka cararaan dhaawacyadoodii iyaga oo xilligaasi ku cabaadaya walaal ha iga tegin. Hase ahaatee ciidanka deegaanka ayaa waxa ay xilligaasi gacanta ku dhigaan dhaawacyadaasi waxayna geeyaan goobo lagu sameeyo in dhaqan celin loogu sameeyo. Hase ahaatee haddii dhaqan celinta ka sokow ay suurtageli weysana waxa ay gacanta u geliyaan ciidanka dowladda federaalka Soomaaliya, gaar ahaan maxkamadda ku shuqulka leh kooxdan argagixisada ay dhibaatada ku haysa shacabka Soomaaliyeed. Al-Shabaab ayaa hadda saraakiishooda iyo sidoo kaleeta ciidanka uga sugan qaybo ka mid ah gobolada dhexe bartamaha dalka Soomaaliya ayaa waxay yihiin kuwo go'doonsan, waxaana halkaasi laga soo warinayaa dhacdooyin argagax leh oo ah in dhaawacyadii ay la carareen kooxdu ay dhammaystireen markii ay waayeen goob ay ku dabiibaan, sidoo kaleetana dawooyinka ay isticmaali jireen ay ka dhammaadeen. Waxaana goordhaweeta gobolka Shabeellada Dhexe bartamaha dalka Soomaaliya ciidanka deegaanku ay ku qabteen gaari waday dawo laga shakiyay inay u wadaan kooxda arxanka daran ee argagixisada Al-Shabaab, waxaana la wareegay ciidanka deegaanka oo sheegeen inay u baahan yihiin dawadani. Al-Shabaab ayaa haatan waxa ay ku jiraan maalmihii ugu dambeeyay noloshooda, waxaana sidoo kaleeta istiraatiijiyadda ciidanka deegaanku haatan ay dejinayaan ay tahay sidii gacanta loogu dhigi lahaa kuwa sheeganaya mas-uuliyadda kooxda arxanka daran ee argagixisada Al-Shabaab, mar walbana dhiigga shacabka Soomaaliyeed ku takbiirsada iyagoo qaldaya diinka iyo sidoo kaleeta jiritaanka shacabka Soomaaliyeed. Kooxdani ayaa hadda waxa ay wajahayaan deegaano dhaca bariga gobolka Galgaduud dagaaladii ugu dambeeyay halkaasi looga ciribtirayo, waxaana ciidanka deegaanka iyo kuwa dowladda federaalka ay u ruqaansadeen degmooyinka Galhareeri iyo Ceelbuur